Imisuu ahaa qiimaha taleefankii ugu horeeyey ee dunida. Warbixinta dhexdeeda ayaad kaga bogan doontaane. Ka hor inta aan soo bixin taleefanka gacanta waxaa jiray taleefano gawaarida ku rakiban, kuwaasi oo miisaankoodu dhammaa 36 kilogram. Sanadii 1947 ayaa injineer ka tirsan bedelay waxa ay sameeyeen taleefankii ugu horeeyey ee dunida, iyadoo taleefanada baabuurta ku xirnaa ay kuwaasi bedeleen. 1973 ayaa injineer ka tirsan shirkadda Motorola oo lagu magacaabi jiray Martin Cooper waxa uu muujiyay sida uu mustaqbalka noqon doono taleefanka gacanta, isagoo markaas ka qiyaas qaadanaya habka loo sameeyay ama habka ay isticmaashay bedelay. 10 sano kadib maalgelin dhan $100 milyan ayaa ugu dambeyntii Motorola waxa ay soo bandhigtay taleefanka gacanta ee Tag sanadkii 1983 kaasi oo qiimihiisu dhammaa $10,000. Hadda waa $10,000. Taleefankaasi waxa uu qaadan jiray in la dabeeyo muddo 10 saacadood ah, waxa uu dabka hayn jiray muddo dhan 35 daqiiqo oo kaliya. sanadii 1994 ayaa IBM Simo waxa uu noqday taleefankii ugu horeeyay ee caaqil ah ee dunida la sameeyo, iyo sidoo kale taleefankii ugu horeeyay ee touch screen ah. waxaana intaas u dhoraa inuu ahaa taleefankii ugu horeeyay ee barnaamijyada taleefanada abiska loo yaqaano lahaa, isagoo ku soo baxay qiimo dhan $1,100, isagoo oo markii dambena gaadhay ilaa $1,800. Today, Apple is going to reinvent the phone. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. May 2007 waxaa la sameeyay taleefanka BlackBerry. June 2007 waxaa la soo saaray Apple iPhone. sanadii 2008 waxaa la soo saaray taleefankii ugu horeeyay ee ku shaqeeya barnaamijyada Android-ka, kaasoo la dhihi jiray HTC Dream. 2009 waxaa la soo saaray Galaxy-gii ugu horeeyay ee dunida. 2016 Google ayaa waxa ay soo saartay moobiladeeda casriga ah ee Google Pixel. Warbixintan waxaad kala socotaan channelka La Jaanqaad. Fadlan subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyada kan xiga oo ah kuwa aad u xiiso badan. mahadsanideen.